saabka dhawaan madaxweynuhu soo magacaabay gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag. Saabka ayaa dadweynaha reer Garadag oo isugu jiray maamulka iyo mas'uuliyiinta degmada bahda dhaqanka ururada bulshada iyo haldoor kale waxa ay kaga hortageen deegaanka Wardheer ee kala qaybiya xadka gobolada Sanaag iyo Saraar. Saabka iyo waftigiisa loo soo galbiyay dhinaca degmada Garadag ayaa waxa lagu soo dhaweeyay madal loo soo agaasimay taasoo ay ka dhacaysay soo dhaweynta barasaabka. ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay maamulka degmada Garadag ugu horeeya maayirko iyo sidoo kale mas'uuliyiin iyo haldoor tiro badan iyo waliba ka tirsan ururada haweenka, waxayna dhamaantood barasaabka ugu hambalyeeyeen xilkaasi loo soo igmaday. sidoo kalena waxay ugu duceeyeen in Ilaahay ku asturo. sidoo kale ayaa waxa munaasabada ka hadlay xubno ka socday golaha deegaanka gobolka Saaxil iyo sidoo kale golaha deegaanka magaalada Cergaab ee xarunta gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin ka socday dawladda dhexe oo barasaabka safarkiisa ku wehelinayay ayaa madashaasi ka hadlay. waxayna gebi ahaantoodba barasaabka ku bogaadiyeen xilkaasi loo soo igmaday. gobolkeena dhawaad waa la xamanaya, waxaan Ilaahay ka baryaynaa inaad kala kulanto barwaaqiya nabad. ku soo dhawow gudoomiye gobolkii degmadii u baalaysay oo ka soo bilowna tuuladii u baalaysay ee Wardheer. waxaan soo dhaweynaynaa maanta gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Muuse iyo waftiga la ballaaran la socda ee uu kamid yahay xildhibaanka golaha wakiilada, xildhibaanada golaha deegaanka, cuqaasha iyo waayeelkii waxgaradkaba ee degmada Garadag. waxaan kugu soo dhaweynaynaa dhamaantii boorta mudane gudoomiye ku soo dhawow degmadaadii hooyo. mudane gudoomiye waxa dadweynaha reer Garadag u heegan u yihiin fariin ay soo dhiibeen in ay ku salaamayaan kalgacalka iyo muxibada ka muuqatana aad ku waftiga la socda xildhibaanada leh maxaan ku dhahay khayarta leh iyo gudoomiyaha kale gaarka ee Xaaji Faarax Maxamuud dhamaantiiba wax soo dhaweeyay degmada Garadag. ku soo dhawaada Garadag gobolka Sanaag. gudoomiye haddaan reer Garadag nahay shicib iyo maxaan ku raahday golo deegaan iyo maxaan ku raahday dhamaantii waxaanu diyaar u nahay dhaqanba inaan kula shaqeyno. maan wax badan anigu bixi maayo, waxaan leeyahay ku soo dhawow gobolkaagii. ilaahayna waxaan anigu waa ducaynayaa, ilaah waxaanu kaaga baryaynaa xilka inuu kuga asturo. ilaahay saasaanu kaaga baryaynaa. waxaan kale uga baaqayaa madaxweynaha iyo gudoomiyaha waa nin la jecel yahay, ninka saa loo soo dhaweynaya soo dhawaantaad ka garanaysaa inuu nin qiimo ku fadhiya yahay oo gobolku qiimo ugu fadhiyo oo degmooyinka ugu fadhiyo oo beesha ugu fadhiyo oo gobolka dhan ugu fadhiyo baa ka garanaysaa. in badanna waxaynu joognay in badanna gudoomiyaha soo dhaweeyay iyo deegaankaaga oo aad iyo aad kugu baahan. waxaan kala raacinaya lillaahumma maalikal mulki tu'ti limulka man tashaa wa tu'issu man tudillu man tashaa وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. waxaan leeyahay Ilaahay kugu garab galo, Ilaahay kugu guuleeyo xil balaaran baa lagu soo igmaday, gobol balaaran baa lagu soo doortay. Ilaahay ku fud. waxaan u maleynayaa may dhicin soo dhaweyn ka balaaran soo dhaweynta loo sameeyay barasaabka cusub. aad iyo aad bay dadweynaha reer Garadag u mahadsan yihiin. anigu kelmad baan oranayaa, waxaan xasuusinayaa Garadag waa baabul madabka gobolka Sanaag, waa halka laga galo waana halka laga baxo. barasaab Axmed Cabdi Muuse waa barasaabkii labaad ee u dhashay gobolka Sanaag. waxa ka horeeyay Yuusuf Ciise Tallaabo iyo Midhig Saalax Jaamac. Tallaabo iyo Axmed Cabdi Muuse labadaba hooyooyinkood. aad iyo aad waxaan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee diiran ee noo soo dhaweyseen ee sidii la idinka bartay. waa abaabulantii sida fiican ee u soo abaabusheen maxaan ku dhahdaa soo dhaweynta de waa la haydeeno. waxa weeyaan laba arrimood baa jiro. mar de waa barasaabkii gobolka, mar kalena de inanka waa dhasheen. waxaan anagu ka nimi gobolka Saaxil ama degmada Berbera ayaanu ka soo raacnay barasaabka cusub. waxaan u arkaynay magacaabista la magacaabay mid aanu ku faraxnay haddaanu nahay bariga Soomaaliya oo dhan. afarta gobol ee Soomaaliya oo dhan inuu yahay madaxweynaha bartamaha Soomaaliya inuu yahay baan aragnaa. barasaabka qura baa madaxweyne. degmada Garadag waxay muujisay soo dhaweyn aad iyo aad u ballaaran. halkii ay u sheegayay gudoomiyuhu ee waxay ka soo bilaabataan filaya ma Wardheer baahay
ayay ka soo bilaamatay shalayna berbera lagu soo dhaweeyay waxaanu ka marxaati kacaynaa inuu gudoomiyahan cusub ee gobolka Sanaag yahay gudoomiye afarta gobol ee barigaba kuwii hore marka loo eegayo inuu yahay nin laga taageersan dhinaca kale ayaa isna gabagabadii waxa hadalka qaatay barasaabka cusub ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxaana uu mahad celiyay dhammaanba bulshadii soo dhaweysay iyo mas'uuliyiintii ugu ducaysay xilkaasi in Ilaahay ku asturo waxaana kula dardaarmay inay la shaqeeyaan waxaana hadaladiisii kamid ahaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa idinkoo isku duuban maamulka degmada meeyarka iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayaha degmada oo runtii shakhsi aad u firfircoon ah aad baan dhammaantood ugu mahad celinayaa cuqaasha reer Garadag iyada waa la yaqaanaa iyagoo isku duuban yihiin marnaba gaadhaa wada qaadanaana qoladayda reer Ceelafin markaan ducaadino aad baan ugu mahad celinayaa haldoorka iyo dhalinyarada haweenka dhammaantood aad baan ugu mahad celinayaa way soo dhaweyseen way ammaanteen way buunbuuniseen ma garan karo dareen aan ku qiyaaso laakiin Ilaahay waxaan ka baryayaa ducadiina iyo dardaarankiinaba inuu ducadiinana ii aqbalo dardaarankiinana ii culo dhaga weeleeya saasan Ilaahay weydiisanayaa ustaadkayga baa fadhiya Axmed Xood oo gudoomiyaha maxkamadda gobol degmadana ah aad baan u salaamayaa maxaan ku raahdaa reer Garadagna sida wanaagsan ee uu la qabsaday ee uu magaalada uga shaqeeyo aan ugu amaanayaa dhammaantiin idinkoo isku duuban reer Garadag waxa la sheegay colaadii waa dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa wax Ilaahay laga reer Garadag waxaan u dardaarmayaa inay isku duubnaan si gooni ah guud ahaan gobolka Sanaagna waxaan u dardaarmayaa inay isku duubnaadaan iyaguna farax burburta Honkebel TV wararka gobolka Sanaag